balwada hada ugu weyn hay tahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabta meel kasta aad joogtaan inta habeenkii tahay inta maalinta tahay waxaan leeyahay xilli kasta idin tahay wanaagsan maanta waxa la joogaa fanaanadii weyneed Mrs. Xiis ama Xiis Maxamed Raaga Saciid Jaamac ayaan soo dhaweynaya waxa ku yiri cumaamada lama haysan karo anoo halkan gaarsiiyo abtisintoodii absaarta ma fahanteen laakiin waan idin awood sheeganayn iska kindeynaya maanta waan ku soo dhaweynaya ina Maxamed Raaga ku soo dhawo YouTube channel ka maalin kasta oo ku soo dhawaatay meesheedaaba iska leh meesha hortaana iska leh ma fahanteen gudoomiyaha meesha ma fahanteen meesha gudoomiye aniga iska leh because waan kula soo bilaabay ilaa dhamaadkana waan joogay ma fahanteen marka adigu maanta ku soo dhawow YouTube channel ka Faaduma Riyaad wallahi waad mahadsantahay aad mahadsantahay hadaan labadayada salo waa shir iska dheer ma fahanteen markaas barta maxay noo kala dambeeyay horta sister ay day ku soo dhawoodii way ka dhamaatay magaalada day wadanka waad iska reebay magaalada iska laba dad baa oran doona Xiis ma Hargeysa timi mise Faaduma jigjiga timi ha ku wareerina meelan joogo labadayadba labadeedii magaalo maalintan doonaan nimaadaanta toona marka ina Maxamed Raaga soo dhaweynaya bal horta dadku aan jabinay haba jabaanbe jabinay bal horta hees aan ku furno ma fahanti ku furana talow teebaan doortaa doorashadii ba xataa aniga iga dhamaatay heesii aan jeclaa xataa aan kala guran waayay ina Maxamed Raaga heesay qaado oo dhan waan jeclaa marka bal aad isxaqaan sisteray kulli toole heesaha wada qaado hal dhageysatid hadana mid aad ka dhageystaan aadiye kulli ogsoon yahay warkayga ku rabo inaan aad u jeclahay hadana erey dhibayo kama waayo ido markaan waxogeyn oo ku dooni dhaabo alo sawahidara la markasana kaysta amsa ilmiya sana hiido markaan iska ma jiro ilani qubaye aminad haddayn jirin ifka nolosha taaliyo armujacayl ku beeyay عليك انت وليدان kaaga hari jiray waad intaas inta dhibay ma fahanteen ma inta yaran ka adagay waa waxa ugu yar qaban karaa anagu ina Maxamed Raaga sanad cusub soo socda waxaan joognaa dabayaaqadii sanadkii 2022 ma fahanti waxaan leenahay nabadgeliyo aad baan u fiican doorkii horena aniga halkan uma joogaada soo moogid sanadkiisii oo waxay xilligii marwada aqal gashay bay ahayd ma sha Allah sanad guuro wacan wanaagsan ma leeyahay horta waxa la gaadhay xilligii marka xilligiina halkan uma joogayo magaalada dawaska magaaladeedii oo anigii hore bay igu sheegay marka horta sanadkan maxaad ku xasuusataa maxaad isleedahay xasuuso iyo waxaad sanadkan bal sidoo ahaa sanadkiisa shiiska dheer waxyaabo badan oo xaggan in laga faafayeen muhiimka ah oo la sheegi karo la soo dhaadhicin aadiye ba dhacay way ma sha Allah waxyaabihii dhacay tidii baa lagu daray way hay marka war asxaabta waan salaamaya waxa leeyahay sanad cusub oo wanaagsan sanad khayr qaba Ilaahay inooga dhigo sanadka sanadkiisa barwaaqo iyo bashbash Ilaahay nagu gaarsiiyo xilligan muuminada isu bedelay way waxaan jecel asxaabtan Faaduma Riyaad ku xidhan waxa leeyahay inta horta subscribe ku ah inta ku daawata ka badan aadiye adeer meesha daawanine arrinkeena meesha cad ala caseeyay meesha cas hala cadeeyay waa jabin halkii ugu dambeysay wadi jabsina Maxamed waxaad iga warantaa adduunka qof walba ma garanaysaa waxba balwadu ah macna dadka Soomaalida horta balwada way khalad fahmeen si fiican hal wuxuun bay u yaqaanaan laakiin qofku waxa jirta maruu internet isticmaali karo maruu wuxuu qaban karo qof walba oo bili aadana maaha inuu balwada ay dhinac tahay dhinac walba qof walba waxba balwada noqon kara balwadaada ugu weyn hay tahay bismillaahir rahmaanir dulka dadka maxaa la yiraahdaa shacabka ama umadeena Soomaalida Ilaahay naga dhaliyo qofku fanaan haduu yahay waxa uu haystaan inuu
daraagis iyo waxyaabo la mid isticmaal waxyaabo ka daran baynu isticmaalaa qof dhintay ma haysto waay aniga balwadida ugu weyn adna waad ogtoo qoftay aan inta wada noolnahay baa aad iyo walaalownay xadkii saaxiibtinimada way gudub waan ka gudub waa la dhaafay ma fahanti waay ani balwadida ugu weyn waa shaah ama isku dhex karsi iyo baas isku dhex karsi war hal ogaado baastada isku dhex kariska iyo shaah hal ogaado aad iyo waayahay halkan caawa su'aalo inoo yaala maxaan sheegaa su'aalahaasna waa iska isticmaali doonaa ayaduna waxay ku tiri dee waxaan ku anigu waan ku weydiiyo dadku hadday dadku naftooda isfahanto maad aragtay wax walba ma garanaysaa caadi war asxaabay midda kale naagtan iga soo gaadhay inaan wariye ahay iyo inaan fanaanad ahay way ka saari laaday warayso gabadhii waxaan ku waa isku dhex milanay markaas halka su'aalaha yaala su'aalahaas isweydiin doonaa ma adaa ka horeynaya mise anaa ka horeyn doona أنا أكون هرينيا because مش أنا وريا كمان. واي بلو. سيستري سؤال شان كويديني يا واحد هاي ولو هرت ورياش إن سؤال ويديان ومتشعر. لكن هذا الدورياش لما متيلو حتى كوينتي أنا جوال عشر. سؤال شان كويديني واحد هاي امتحان أديك أقش هي ويلي جاء ملقو وقبت. بسم الله الرحمن الرحيم. برعة معي هذا تردني. والله ciyaalnimadan xasuustaha waa la igu qabtay imtixaanka de qof kastaba ma garanaysa markuu ciyaalnimadiisa de soo wada maray waliba de imtixaamo adag baa jiray oo qofku markuu aid ka baxay iskuulka dugsiga hoose dhexe uu dhamaanayo kale markaas oo kale imtixaanka uu qishaa hawluhu waxay ku soo qori jireen ama goonada hoosteeda ay ku qori jireen inta badan markaas inta maalinta imtixaanka laygu qabtay baxashadiina layga jexjex galaaskina waa layga saaray bismillaahir rahmaanir waxba ku dhacay maalintaas ya maanta waxba ku hay iska sheegin maalintaas imtixaanka waayahay wali waxaan ku guda jirnaa barnaamijkeena su'aalaha markaas halka waxa ka soo baxay su'aala barnaamijkee ama se applicationkee ayaad ugu jeceshahay mobilkaaga inaan isticmaalo snapka ugu jeclahay ya snapka wacada waay inaan isticmaalo aalada waay maxaa ku dooratay snapka والله ده وسكا حرام فاضمو سؤال شيدي لبعض ان كويدينيو ويان دي waxaan ku أنا سؤال adag bad weydiinaysaa yep أنا snap chat iyo banaa iyo waxba igu soo yep hey halkeed filaysaa 10 sano soo socda inaad tagtid atiraadid ba adeer meelahan joogayo والسلام عليكم waxaan filayaa wallahi meelo badan ma filaya insha Allah qorshaygu aad beeli saas u dubitahay waxaan ka baqayaa in dadka inta qorshaygu ogaadaan iga oo yeelan socdo markaas wallahi waa secret laakiin wala soconaysaa cidina ma taagnaanayso fadhimay ala ilaahu ta su'aal adag ka dhig oo dhagaxa waxaad ii sheegtaa waa maxay qofka noloshaada saameynta weyn ku yeeshay isagoon ku dareysiin aanan ogeyn isagoon ku dareysiin oo daan macnaha ku balbalaadhin warka laakiin noloshaada saameynta adduunka ku yeeshay hooyaday macaan maasha Allah ana jeclaa go'aankee waqtiga dheer kugu qaata inaad gaadho go'aankee waqtiga la ilaaha illa kaala su'aali maxaa ka sii tageen ورفع يقول عامل وروري إسماعيل موسى محمد علي وحواب أساسا نقول أبتريا waxa weeyaan go'aankii nolosheeda ugu adkaa soo maan qaato waa markii qof aan jeclaan ka tagay adoo jecel aad ka tagtay oo ficilay waxa sala jamil la iyada xasuusin su'aasha ugu dhagaxsan waa inaan keeno meesha balkee way maxay tahay arrin beena oo adin badan يري هاي قصة سلاني أيوة يري وضبل ومحي أري بينا واد متدير سو رومينيس أو بين بقى والروميني تخصي شباب لا أرسقي دق بعد هالسؤال بين أن إم بدن دو اليوم رن أنا هذيك أنا في البيت واحد إحنا كبيتشري أنا ما راح أحمل ولا نقص كلام
anigana been bay yahay ha waxba kama jirin ba wax ka jawaab ani qosol ay ugu dhaafanay su'aasha kama jawaab gabadhan waa caqli badan tahay waxay rabtaa inaan dhaafo barnaamijku waa xidhmaya adiga su'aasha ii bedelsiisa may dad asxaabta waan u sheegayaa su'aal bayntay tiri muuqaalka jar iyo bedelata imikana ma yeelayo muddo astaghfirullah been aan waqti badan aniga run ii ahay walaa aad baa culus su'aashaas digidayda waa sii daynay walahi been aniga run ii ahaan jirtay waxay ahayd horta Faadimo ma jeclay emotional anaga ku aabahay oo dunida uu jeclahay baa geeriyooday bisiga muddo fara badan riyay ila ahayd inuu aabahay geeriyooday runno aniga Allah yarxam raxmiin ilaahay naxariista aabayaasha su'aashaas halkaasaan kaga gudbinaa ku soco waay maxaa aad kaaga cadhaysiiya waxay iga cadhaysiiya qofka intuu macnaha ballan ama wax iiga ballan qaado macnaha beento kale beenta aad iga cadhaysiisa waa isla beenta unbay noqonaysaa su-aashaas markaas beenta aad baa uga cadhada qofku hadduu beenii sheego alyacni cadhadeeda ma xakameyn karin way jabanta su-aashaasi waxaas ma wax dadka la weydiiya waa maxay guusha ugu weynaad ku faanto guul aad tiraahdo taas waaba laba taabtaanba bismillaahi raxmaani raxiim mushtaaqi maxamed maasha allah waa awlaadeeda guusha ugu weyn ay ku faanto haye ku soco waan kuu naxariisanaya waa su-aashii waan yaro baadho waxaan tiri waa tii imika tiri si ogaada waxaan ku weydiinayaa Faadimo waa kee filimka aad ugu jeceshahay filimada daawad أنا مرتوحة هاي لنا عم قرصة بولوكا حاجة أنا شو عم قرتها ترقينا نقول شو تذكر موجة ما قرنت مركز أنا مرتفلي ما بدن ما شحال هاي وهذا بدن لكن فيلم واحد شرانا كحيسة دحين وبارت 1 بارت 2 بارت 3 ملاسن كداودو حتى هدان بقول شر داودو ما كعجتو دوم بالعادة دوم تو بالعادة سومالنا حيران دوم تو سوي آخرين مكاس كنا كاس الحيسة ونشعر والله هاستي كحنا قصاص هو هذا أنا بتشيك كحبة وانا كحبة وانا واي مركي عادي ريد محاد على دينا النقطة مستقبلك مريهانا إن النقطة ما إن النقطة محاد سلا هذه النقطة مستقبلك ها مريهانا محد يقول أنا عطينا توا فنانين المعنى مين هيستريك مين يا مستقبل كارتو قف وحو ربون بالنقطة واي ده هم حتى على يرانتي أنا هو واحد على محد براني سامر كلايدو عفيمات اخترت بربعينا النقطة أنا كدوي بس عادني صور وين الدكتورة ده هاي والله دكتورة ده كسب حتى كور أوف عليك نيرس أنا كدوي اللي كسكا سكيني وش على بعد كوجي حاجة ما قرن سافنكا أو فافريت كيجا بنوشك waa ayo qofka mar walba ku taageero ma hada ki ala wahadlaayay waxa soo kala ma wax way qofka nolosha weeyaan taageera ku bushkareeya ku dhahay fadhimeeya looy cararay wallahi qofka nolosha saameynta ugu weyn waxa weeyaan markasta jecelina wax qabsado markasta jecel ma garanaysaa guusheeda markasta jecel horumarkayga adiga waa laba qof ma garanaysaa waxa la raadayay intaas Samaara Maxamed Xarbi waxay joogtaa Holland bay joogtaa markaas waa dadka markasta guusheeda iyo nolosheeda jecel wax uu qabto iyo sagal baadiq oo iyadana markasta igu dhiirigelisay wariyahina caashaq inaan badan garanaysaa ma sha Allah marka labadana waa mahadsantiin aad mahadsantiin dhiirigelinta fawd mariyaad soo hadii aad naftaada u hibeyn lahayd waxaad doontid maxaad naftaada u hibeyn lahayd waxaad oran lahayd naftaydu ha tagto Mareykan waxaad oran lahayd dhulka hoostiisa ku sameeyay guri maxaad u hibeyn lahayd naftaada Makka iyo Madiina dhexdooda ayaan degilay ma sha Allah Madiina waxa ku dhacay iyo weyn bay leedahay fanaanadu ciyaar ma ku digday la bacaanay wada kasta saaragno wadiga qoslisay su'aashaasna dadku way weydiiyaan maxay ku dhahan dadku adoo qoslay ma ku aragna walaal
ها أنا حس وحي كل شيء كيسنا سي قلبينا معناه قلبينا يدا إسلا شيء كيسنا سؤال ويديني واحد هذا ولو أن سؤالها اسكسو كوكوبي اسكسو كوبين markaad kaligaa tahay maxaad jeceshahay in aad ku mashquusho markaan kaligaa waa markaan ugu daranayba hawl baa dhacday oo arintaas waa ya kelinimada markaan guriga joogo waliba gurigayga markaan joogo saan u jecelahay ha iska sheegi boqol wax baan qorsheeyaa arrimahaygu aad bay u badan yihiin aan ka jawaabay Soomaa aad baad uga jawaab waa maxay waxaad naftaada ka goyn lahayd oo aan idin kugu jirin wax dana haba yaraatee aan kugu jirinba waslaada maalin walba waxa weyn iska jirta iska diis ta baastadaas ku dhaxkarska dambe igu jirta weyn iska maadaama barnaamijka hees ku furanna hees baa ku gabagabaynayna saas uu xidhan yahay nabad geliyaan idin leenahay laakiin intaan la oran waxaan idin leeyahay ma soo qabtaa maanta halagu kala guurayso nasrigi qaad heestada ku ma ana wajha nasrigi aan sugayo naqroba ii curto neecaw bay mari udgo nasiibkan isaacido naruuradiisida nasiibkan isaacido naruuradiisida isidaay maasha Allah intaas ku soo gabagabeynina tan intaas kugu iman doono programka xiga ama barnaamijka xiga waxaan dilahay sidaas iyo nabadgelyo